بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمانتين بمالي واجوكتان با waxaan aad ugu faraxsanahay in mar kale aynu isu soo noqonay isla markaana aanu isugu nimay sidii loo falanqeyn lahaa arrimahan soo kordhay ee dalkeena iyo dadkeena ku soo kordhay. sida muuqata waxaa wadankii uu qaybsamay qabaa'il aan fahamsanayn himilada qarankooda, aayaha shacabkooda iyo wadajirka bulshadooda, taasoo ay sababtay ama ay sababi karto kala gogo ku yimaada gobolada iyo degmooyinka dalkeena, oo ay horboodayaan jabhadihii wadanka burburiyay qaybo ka mid ah iyo dadkii jabhadaha kusoo shaqeeyey iyo dad Soomaaliyeed oo u arkay in maslaxadu ay ku jirto marin habaabinta shisheeyuhu uu soo maleegay. waana runtii wax laga niyad xumaado, wax laga niyad jabo, waxaan inaba habboonayn in mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed loo sahmiyo meel lama degaana oo dhibaatadeeda iyo tafraaruqeeda iyo mushkiladeeda yeelan karta. waxaan isleeyahay waa la hayaa qayb ka mid ah wixii aynu hore uga digaynay in ka mid ah oo ahaa doodihii faraha badnaa ee aan la galnay dadka federaaliyiinta ah ee mabda'a federaaliga ku taaturay inay iyaga laftigoodu maanta hayaan dhibaatadii ummadda ay ka digaysay ama golaha uu ka digay. waxaa idin muuqanaysa inay maalmahan meediyada isu marinayaan maamulka cusub ee galmudug iyo maamulka puntland oo ah xuduudo qabyaaladeed oo shacabkeena dhex yaala, oo ay horboodayaan qabaa'il Soomaaliyeed oo aan innaba dana qarannimo iyo haybad sare oo bulsho aanay muuqan, himiladeedu aanay muuqan. waxaa marka laynoo ka baahan yahay in la dardar geliyo sidee loo kala badbaadin karaa dadkan si aanu iskugu dhac iyo dagaalo qabaa'il ku salaysan oo wixii jabhaduhu ay wadanka soo mariyeen inaanay wadanka ka dhicin. sidee mabda'a khaldan ee federaaliga lagu sheegay ee la qaatay ummadda looga soo celin karaa? sidee faragelintaa shisheeye ee ay Ethiopia iyo Kenya ay wadanka ku hayaan loo yareeyaa? sidee khayraadka dhulkeena shirkadaha laysaga fasaxay ee qalinka meel walba loogu saxiixay sidee baynu ula challenge karaynaa oo xuduud badeedkeena iyo khayraadka baddeena sida hadda dacwadda iyo baaritaanka shirkadda Soma Oil iyo Michael Howard oo ahaa hogaamiyihii xisbiga talada dalkan Britain haya hogaamiyihiisii hore, oo ay muuqanaysaba in xitaa musuqmaasuqii iyo marin habaabintii aan lala dhuumanaynin. dowladda maanta dalka ka jirtaana ay tahay dowlad shisheeyuhu uu dhistay sidii ugu banaysan lahaa khayraadka dalkeena. innagaa marka hawlayna hortaalla oo halkii hadal murtiyeedka uu ka lahaa ninkay ku hartay bay hawli haysaa. maanta innagay hawlayna haysaa. sababtu waxay tahay waa mustaqbalkeena iyo aayihii ubadkeena, danihii qarankeena iyo umadnimadeeni, mustaqbalkii ubadka aynu dhali doono sidii aynu maaragtay uga hortegi lahayn in waxyeelo ay ku timaado. sidaynu uga hortegi lahayn sidii wadankeena inta iyaga loo kala qaybiyo haddana loo xukumi lahaa inaanayna ku dhicin taase sidee baynu ka yeeli karnaa? wayna sahlan tahay runtii. muddaynu kusoo shaqeynaynay si jabaqli ah in qof walbaaba meesha uu joogo inuu shaqadiisa ka wato, in la isku dayo bulshada wacyigeeda in la dhiso, in la criticize gareeyo, isla markaana la bahdilo si nabadgelyo ah waxyaabaha caqabada ku ah. for example waxaynu soo jabaqtirnay shakhsiyaad aynu isku dayna inaynu isticmaalno markii hore oo qaaqaan ka mid ahaa
oo aada ogtihiin in maalmihii hore aynu moodnay nin la maaragtay bulshada la hordhigi karo oo la isticmaali karo, laakiin mabaadi'da diinta ka fog iyo maslaxad daradii ula yimi halkii ay la martay. waxaan ognahay hogaamiyeyaashii hore, madaxweyneyaashii sheeganayay ee shisheeyuhu waddanka uu keenay ee ka horreeyay kan hadda jooga halkii aynu la marray iyo sidaynu u jabaktirnay. challenge-ga maanta ina haystaa waxa weeye ninkaa maanta meesha madaxweynaha ka ah oo u eg runtii yar dhaama kuwii hore, u eg nin wadaniyad iyo wax noocaasa dadka qaybtii ay ka fahmi karaan, haddana horboode ama horjooge ka ah qaybinta qabaa'ilka iyo gobollada iyo degmooyinka Soomaaliyeed. midna waa run inaynu caddeyno, waa wax muhiim ah. waddan qabaa'il ay ka taliyeen amaba dad ay kala mabaadi' iyo kala principle ah oo aan mabda' guud oo cilmi ku dhisan aan isugu tegin ama aan mid bulsho isugu tegin, waddan ma hogaamin karayaan. Puntland oo aada ogtihiin marxaladda ay soo martay iyo xilligii ay dhisantay, waxay qarka u saaran tahay burbur. gobollaa ka go-ay, gobollo kalea hadda ka tegaya, bulshadii baa dhexdeeda is haysataa. gobollada jubba lagu magacaabay oo iyaguna ay Kenya shakhsiyaad Soomaali ah iyo warlooro ay isugu soo ururisay, iyana waxay u baahan yihiin haddii aan laga hortegin runtii marin habaabinta kasoo socotay isagana sidoo kale. maamulka gobollada dhexe kasoo kordhay wuxuu la mid yahay maamuladii hore aan u qaadacnay. marnaba waddankani xuduud qabyaaladeed iyo xaafado qabiil oo aan haybad qaran lahayn, isla markaana u muuqanaya inuu dowlad yar oo dowlad weyn oo Soomaaliyeed ku dhex jira inaanay inaba xal noqon karin. mabda-iyagu sidaas uu cadyahay. aragtida aan qaadanay iyo visionka aan isleeyahay ama aragtida aan isleeyahay muddada kooban ee aada wax tacabiraysaan, ku tacabira wax haddii aada maanta dunida ka tagtaan aan maaragtay khiyaano iyo adduunyo aan ku lug lahayn. marna damac lagama hayo inaan anagu xil qabano, laakiin in ayaha qarankeena iyo umadnimadeena ay saldhigto. marka waxaan kusoo gabagabeyneynaa, marnaba anagu raalli kama noqon karno, raallina kama nihin ciidamada Ethiopia, kuwa Kenya iyo kuwa Amisom ee gabadfalka ka geystay gobolkan Shabeellaha Hoose, gaar ahaan magaalada Marka. waxaan u tacsiyeynayaa shacabkii Soomaaliyeed ee magaalada Marka lagu dhibaateeyey. intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawaca ahna Allah u fududeeyo. waxaan aada weliba si gaar ugu tacsiyadeynayaa hooyada saygeedii, caruurteedii oo farxad iyo aroos iyo xaflad ku jirta ay dhibaatada soo gaartay, inuu iyadana ilaahay u yasiro. ummadda Soomaaliyeedna meel ay joogtaaba waxaan ugu baaqayaa, dulmigu waa shay xaaraam ah. in la daawado dulmiga oo laga aamuso iyo in dulmi la geystaa waxba kuma kala duwana. qofku inuu dulmiga ka aamuso oo uu dulmiga daawado iyo inuu dulmi geystaa waxba kuma kala duwana. waxaan kaloo iyadana jeclahay inaan sidoo kale aan xuso dadweynaha Soomaaliyeed waxay qayb muhiima ka ciyaari karaan hanaanka iyo horumarka dalkooda. haddii xitaa ay qabaa'il yihiin waa la Soomaaliyeyn karaa, oo qabaa'ilka in la Soomaaliyeeyo oo wadiiqada ugu wanaagsan ee aanu aaminsannahay in marxaladan murugada ah oo la galay in maaragtay looga bixi karo. dadkan waxaan kula talinaynaa qof walba oo degmo jooga, dadka degmada ku nool sidii wax loo bari lahaa, caafimaadkooda looga shaqeyn lahaa, midnimadooda iyo islaaxooda iyo nabadgelyadooda looga shaqeyn lahaa. kii gobol jooga gobolka uu ku nool yahay, kii qurbo joogaana sidii uga qayb qaadan lahaa hanaanka dib u heshiisiineed iyo horumarineed. inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa amaanada Ilaahay. waadna mahadsantihiin runtii.